صحفيات كوبان wuxuu la xiriiraa arrin yar oo ka dhacday bangiga dhexe iyamahan asbuucan waxayna tahay in bangiga la arkay lacagtii khasnada ku jirtay qayb yar oo kamid ah khasnada badan baa bangigu leeyahay khasnada hoose hawl maalmeedka lagu maamulo oo yar lacagtii ku jirtay baa wax la arkay qaarkeed inuu yahay lacag aan sax ahayn ama lacag been abuur ah oo dollar ah arrintaas waxay ku timi subaxii markii khasnada la furay baa wax la arkay lacag 10,000 oo dollar meelahaas oo loo arkay inay tahay lacag been ah ka bacdina ninkii kaashiyerka ahaa baa waxa dhacday inuu awood uu helay si qaldan inuu markaas u baxo meeshii isla markii ay ahayd inuu in la qabto oo moogta waxaas oo la xiro ninkii isla markiiba waa la raadiyay raadintiisii baa moogtahay la weli lagu jiraa lacagtii ka bacdi khasnadihii iyo lacagihii oo dhan baa dib loo tiriyey dib markii loo hubiyey waxaa soo baxday lacag 530,000 oo dollar ah oo been abuur ah oo lacagtii rasmiga ahayd oo lacagtii khasnadii yarayd ku jirta kamid ah baa la arkay sababta ku dhacdayna waxa loo arkayaa bariyahaas ugu dambeeyay ninkaas khasnajigaahu inuu lacag been abuur ah intuu qabto lacagta kale oo ku dhex dari jiray lacagtii marka guud ahaan haddii dusha laga eego ma ogtay waxa weeye lacagtii waa dhan tahay laakiin mushkiladii waxay tahay lacagta intaas leeg 530,000 oo dollar markii aan ku celiye baa waxay tahay lacag been abuur ah oo aan sax ahayn isla markiiba arrimahaas marka waxaan wargelinay hay'adaha baarista dambiyada sida CID-da ama oo booliiska iyo hay'adda nabad sugidda labaduba waxay bilaabeen markaas waraysi fara badan inay sameeyaan baaris inay sameeyaan shaqaalihii la xiriiray oo dhan arrintaas inay la xiriiraan oo wareystaan oo moogta ay ka qaadaan waraysi iyo xog ay ka qaadaan arrintaas weli way socotaa ninkii kaashiyerka ahaa oo weynaa sidiiba u baxsaday dadka intii kaleeto oo tuhum iyo waxaas ay galaanna waxa ku socotaa nidaamkaas baarista oo baaris dambiyeedka ah baa ku socda arrintaas marka waxaan war xogteeda dambe oo dhabta laga sugayaa biliiska iyo nabad sugidda bangiga wax weyn waa wax dhaca moogtay in lacag laga xado tuugo meel kasta ay ka dhacdaa bangina waaba ka dhacdaa iyo meel kasta oo lacag lagu hayo waxay aanu samaynay taxadarkii ugu weynaa baanu dib u samaynay baaris buuxda la sameeyay nidaamkii dib u hagaajintiisii baa moogtahay lagu dhaqaaqay dhanka kale gudoomiyaha bangiga dhexe waxa uu hay'adaha dawladda dadweynaha iyo sidoo kale hay'adaha caalamiga ah ee la shaqeeya bangiga ugu baaqay in sidii hore ay ula shaqeyn jireen ay ula shaqeeyaan bangiga waxaana uu tilmaamay inaanay wax saameyn ah ku yeelan doonin bangiga dhexe ee Soomaaliya dhacdadaasi arrintan dhacday ma aha wax saameyn ku yeelan doonta bangiga awoodiisa dhaqaalihiisa xiriirkiisa wanaagsanaa uu la lahaa moogtay dawladda bangana waa bangigii dawladda dawladda iyo hay'adaha caalamiga ah moogtay waa bangiga moogtahay ay hawsha iyo xiriirka dawladnimada la sameeya arrintaas dhacdayna wax saameyn oo xun oo ay ku yeelan karaysa ma jirto qof walba dadku waxooda wixii dhumay bangigay ka dhumeen oo moogtay waana wax yar oo bangigu uusan u dhutinayn oo waxbana ay yeelahayn isaga moogtahay taxadarkiisa iyo nidaamkiisa wixii ka samaystay shacbi weynaha iyo moogtay inta xiriirka nala leh iyo dadweynaha Soomaalida bangana waa bangigii dawladda waa bangigii ummadda markaas waxa weeye ummaddu xaq bay marka waxay u leedahay inay ogaato wax kasta